Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada ayaa Nuura Cooking waa idin salaamay meel walba caalamka ka joogtaan. Maanta waxaan sameynayaa rooti aad iyo aad u macaan oo maalin hore ay iga codsateen inaan sameeyo. Marka haddaan sameynayaa insha Allah rootigan aad u macaan yahay. Dhexda waxaa laga geliyay sabiib aduun iyo kastar. Waa ka heli doontaan insha Allah. Waxaa ka sameeyay 4 koob oo bur ah 1 kiilo bur camal waaye. Adiga koobka markay 4 loo qaybiyo hal qayb oo sokor 50 graan camal waaye. 7 qaado oo maxaa la dhahaa oo maxay ahayd 7 qaado oo subag ah 100 graan camal waaye iyo 2 xabo ukuna iyo 3 qaado oo maxaa la dhahaa qaadada yarista teaspoonka oo maxaa la dhahaa oo fixisa ah adiga waxaa waaye 10 graan camal waaye. Intaasaan ka sameynayaa. Hadda meeshaas waxaa ku shubaya waxaa waaye burkii ku shubaya nus kiilada bur aheyd. Intan hadda waxaan ku shubayaa fixisadii waaye oo 10 graan camal aheyd. Waxaan ku darayaa wax yar sokortii xoogaa sokor yar ka soo qaatay waa ku daray. Kadib waxaan ku darayaa caanaha qandac waaye kuleel ma aha laakiin waa qandac ma fahanti. Kuleelka hadaa ka badisid way ka dhimanaysaa fixisada mise leebitada ama yeastiga u taqaanid. Xoogaa yar 10 daqiiqo camal sugaysaa si ay kugu kacdo fixisada. Kadib meesha waxaa ku daray cusbo yar aan ku daray. Hadda waxaan ku darayaa sokortii intii ii soo hartay waaye. Sokortii yareed oo 4 qaado camal aheyd waaye aan ku daray. Xoogaa waa walaaqayaa. Kadibna hadda waxaan ku darayaa fixisadii oo aan qasay aan ku daray iyo 2 xabo ukuna. Kadibna mashiinka u daaraya gacanta ku qasan kartaa mashiin haddii aadan haysanin mashiin uma baahnid laakiin mashiinka waxaa waa howl fududeys oo la guri ka qabsan kartaa. Caanaha hal mar kuma wada daraayay xoogaa ugu darayaa si uu hadhow burka ugu fakanin caanaha mise biyaha wax walba ku qasaysid burka waxaa fiican inaa xoogaa ugu dartid si qiyaasta ay kaaga dhumin haddii kale wixii aad ku darsato ukuntii aad ku qiyaasatay sokortii cusbadii wixii oo dhan waxa ka dhumaayo maxaa la dhahaa dhadhanka waayo burka ka badanaysa inaa bur gadaal ugu dartay ka noqon waana ka jilay marka hadda waxaa haysataa awoodda maxaa ahayd inaa ku sameysa adjustment iyo xoogaa ugu dartid ma fahanti. Waa kaas haduu soo qasmay burkaas ilaa uu iska raaco saasaan u qaseynaa mashiinka noo qasaa xoogaa baan ugu darayaa ujeedaa kama badinaayay sidaan kuu sheegay wax yar inta ugu dambeysaan ku wada darayaa mar dhow ilaa si fiican uu uga qasmo waa fahanteena u maleynaa. Waa ka burku wada qasmay. Hadda waxaan ku daray 7 qaado oo maxaa la dhahaa subag ah 100 graan camal waaye. Gacantaas uu qasi kartaa haddii kale mashiinka ku wada qasaay dhima laha. Xoogaa inaa waxaa rabaa dhudda ay ka gasho subaga oo si fiican ugu milmo waa u daaray mashiinka adiga burkan xoogaa uu qasmaayo adiga 30 daqiiqo ugu yaraan uu qasmaa u maleynaa waxaa rabaa inuu si fiican u qasmo oo hadhow markii aad sameynaysid si fiican kuugu fidsamo oo maxaa la dhahaa cajiin maasha Allah meesha kaaga soo baxo waa ujeedaa saas haddii uu ku noqonin waa ina hashtaan ku celisaa ma ku toosin ma fahanti. Waa ka fiiri saas oo noqday haddii uu saas ku noqonin fadlan mar labaad hash ilaa glutiinkiisa ay soo baxayso haddii kale uu ka halaabayaa. Markaas waxaan dhigayaa adiga 1 saac camal sida rootiga loo dhigo ogtahay 1 saac la sugaa ilaa uu ku soo khamiiro ujeedaa. Haddana waxaan sameynayaa kastarka oo aan rootiga ku waxaan ka sameeyay 2 koob oo caano ah nus koob oo sokor ah iyo 4 xabo ukuna. Ukunta waxaa isticmaalaysaa shaharka oo kaliya qaybta jaalaha xabka ka reeb. wax yar oo vanilla ah la isticmaal kartaa vanilla haddii aadan haysan iyo wax yar oo subag gadaal aad ka tusi doonaa iyo 4 qaado maxaa la waraanga ah intaas ka sameynayaa. Vanilla sugarna waa isticmaali kartaa haddii aad rabtid carfisada oo buskudka lagu dar. Hadda meesha waxaan ku daray ukuntii iyo waxaan isku qasayaa ukuntii iyo sokortii. Hadda waxaan ku daray waraangadii ku daray si fiican inay u qasantaa rabaa. Kadib saas ay noqonaysaa markaa cabaar qastid ujeedaa. Kadib waxaan ku darayaa maxaa la dhahaa carfisadii aan ku daray ama vanilladii sidaa kuu sheegay heel waa ku darsan kartaa haddii aad doontid saas ku noqonaysaa. Kadib caana aan soo kululeeyay waaye wax yar oo ay kulul yihiin caanaha laakiin may karkarin laakiin way kulul yihiin xoogaa aan ku wada dar hal mar kuma wada darin haddii kale ukunta ka halaabayso. Dabka saaraysaa waa karinaysaa dab oo yacni dhexdhexaad ah ku karinaysaa oo zaid ahaynin si aysan kaaga halaabin xoogaa aan sugaysaa ilaa ay kaaga adkaato waxaa la rabaa inaa beeshan yeelita. Haddana waxaan ku daray
wax yar oo subag ah, 2 qaado iyo bar oo subag ah. Markii bislaatay kastarka markuu bislaaday kadib aan ku darin ujeedaa. Hadda marka waxaan ku shubayaa baaquli aan ku shubayaa si aysan labeen u yeelan. Waxaan ku daboolayaa plastic yar, firinjeerkaan gelinayaa si uu usoo qaboodo. Habeenkii aad qasan kartaa, firinjeerkaa gashan kartaa si maalinta kale u isticmaashid oo rootiga aad samaysanaysid. Waa kana rootiga 1 saac kadib saan ku soo baxay. Wuu qamiiro waa ujeedaa. Adiga zaa'idna uma qamiirin, yacni si dhexdhex weelka muu buux dhaafin, laakiin sida laga rabay 2 jibaar uu noqday waa ujeedaa. Intuu ahaa 2deed uu noqday. Wuu soo qamiiray. Jikadaada ku xiran tahay qamiiritaankiisa iyo waqtiga xilligaas lagu jiro. Waqti qaboobaha adiga maybe 1 saac iyo bar inay kugu qaadato. Kuleelahana iyuu ku qamiirayaa. Waa kaasa hadda marka waxaan sameynayaa firinjeerka xoogaa ku celin aan firinjeerkan gelinayaa daay banaanku yaalo wuu qamiiray si uu xoogaa u sii adkaado uu shape u yeesho markii aan fidanayo oo aan hagaajinayo. Ma fahantay? Haddii aad rabtid waa iska dhaafi kartaa. Isla markii aad samaysan kartaa rootigaaga habaysan kartaa. Ma fahantay? Waa kaasa marka weelkaas ku shubaya waan ku ridayaa ku shubaa kulaha. Kadibna firinjeerka gelinayaa. Hadda meesha wax ku jira 1 koob oo sabiib ah. Biyaan ku darayaa. Adiga burki intaadan qasin ka hor iska qaso sabiibka meel dhigo si uu kugu jilco. Waa kana nus saac kadib talaajadan ka soo bixiyay. Hadda marka waxaan la fidinayaa, aan hagaajinayaa. Saasoo ku soo baxay xabaar kadib. Marka eerka dhanaan ka saarayaa, doon fidinayaa marka waa ujeedaa. Haddii aad rabto firinjeer ha gelinin sida hore aan kuugu sheegay waa iska dhaafi kartaa. Caadi waa u samaysan kartaa laakiin aniga saanaan jeclahay saanuuna qaab kuugu yeelanayo. Ma fahantay? Marka hadda waxaan ka dhigayaa adiga 4 gees aan ka dhigayaa. Kadibna waxaan ku darayaa kastarkii. Kastarkii saasoo ku soo baxay marka talaajada la geliyay oo saasoo kuugu soo baxayaa. Subaxii aad qasan kartaa. Galabta haddii aad samaynaysid mise habeenka ka hor ayaa qasan kartaa. Saas ugu wada fidi kulli xoogaan ka soo reebo kuma wada darin intaas sameeyay qiyaasiso adiga. Waa kaasa sabiibkii oo biyaha aan ka soo miiray oo yani aan soo qalajiyay waaye. Sabiibkii aan soo qalajiyay waaye korkaan ugu shubay. Saasa u duuduubaysaa kulligiis. Markii aad duuduubtid oo saasa u duuduubtid kulli waa gogoynaysaa. Saasa u gogoynaysaa kulligiis waa ujeedaa. Haddii ay isdhahdid yani xoogaa uu ka kala daatay ileen kastara dhexda ugu jiro marka waxaa sameynaysaa saasa isku geynaysaa aw hagaajinaysaa. Saasoo ku soo baxay fiiri waa kaasa. Ishcalaa kastarka waa ujeedaa iyo sabiibkii kulli dhexda ugu wada jiraan. Wareeggaasa u duuduubaysaa kulligiis. Saasa u habaysanaysaa. Saxana soo diyaarsanaysaa saliida marinaysaa ama subag. Kadibna waa saaranaysaa haddii kale wuu kaaga dhigayaa. Adiga dhowr saxan camal soo diyaarso meesha soo dhigo kulli saas u hagaaji. Kulligiisas u gogoyso. Markii aad dubaysidna yani ha isku dhadhaweyni kulligiis. Saxanka wax yar inaad saartid la rabaa oo yani kulligiis aan isku wada dhadhaweynin. Saasa gacantaada saas ugu balbalaarinaysaa mise qaanto wixii ay haysid saas ugu balbalaari si hadhow uusan kor ugu soo fuurin markaad dubaysid uu u balbalaarto. Aniga waxaan ku daboolayaa bacda loogu talagalay plastic cuntada lagu daboolo loogu talagalay saliida maray si hadhow markuu soo fuuro uusan ugu dhagin plastic ay ugu dhagin. Maxaa la dhahaa waxaa mariyay saliid yar. Meeshaasaan dhigayaa 1 saac aan sugayaa. Asigoo saas daad dubta dhagax uu ka noqonayaa soo waa inaad sugtid ilaa uu kaaga soo qamiiro mar labaad. Waa ujeedaa. Markuu soo qamiiray 1 saac kadib saasoo ku soo baxay. Waa ujeedaa soo ma? Marka hadda waxaan marinayaa ukuna marinayaa. Ukunta yani dhalaal ay u yeelaysaa. Ma fahantay? Dhalaal ay u yeelaysaa. Biriq ay ka dhigaysaa. Qurux ay ka dhigaysaa. Ukuntaas saas kulligiisas u wada marinayaa. Saxanka sidaa kuu sheegay hadda meeshaan saxanka waxaa saaran dhowr xabo ma ka badanin
5 xabaa saaran ujeedaa. Waxaan ku dubayaa 375 oo Fahrenheit ah. Celsius-kana waa 190. Yacni 13 daqiiqo saxanka madow igu qaadato, saxankan cad oo qalinka ah 18 daqiiqo. Marka ovenkaaga ku xiran tahay mar walba inaad jeegaraysid waaye. 15 daqiiqo markuu maraayo camal fiiri si uusan kaaga gubanin. Ileen ma isla qof walba yacni foornada wax ku dubanaa way kala duwan yihiin. Hadda saasoo ku soo baxay rootigan casariya ka dhigan kartaa. Ama subaxii quraac ka dhigan kartaa, qaxwadaada shaayigaaga ku cabaysaa. Insha Allah aan ku dhahay macaan lagu lalaboonayo ma laha. Waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen aad soo tijaabisaan insha Allah oo idin tooso. Saasoo kulligiis ku soo baxay. Khayra idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddaa cusub tahana insha Allah soo dhawo subscribe garee asxaabteeda horena aad u mahadsantiin.